qaar ka mid ah ganacsatada suuqa aadan warfa ayaa ka cabanaya gaadiid iyo koronto la'aan ka jirta gudaha suuqaasi sida warkaasi burco inoogu soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Damashaad goob wanaagsan way ku taalaa waxa uu nasiib yeeshay oo goob sariibada tan ugu talagalay dadka degan suuqa Tawali la yiraahdo bacadka dhawaan ayay ahayd markii dawladda hoose magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee sariibad cusub ka hirgelisay goobtii laga reeray kawanka hore lagu qali jiray xoolaha magaalada Burco kaas ay sheegtay inay ugu tala gashay dadka iyaga ku ganacsada suuqa lagu magacaabo Tawali oo ku yaala bartamaha xaafadda weyn ee October haddaba iyadoo ay maalintii shalay dawladda hoose degmada Burco ay cagaf gelisay goobaha ay ku ganacsan jireen dadkaasi ayaan u qalab qaadanay si aan wax uga ogaano meesha la dejiyay dadyowgaasi waxaanay cabasho weyn ka muujiyeen habdhiska goobta ay sheegeen aan sida uga habboonay dhisin iyo wada la'aan jirta sidoo kale waxa intaasi soo raacday gaadiidka yaryar ee loo yaqaan tigaha oo ahaa mid hawl fududeyn weyn u ahaa dadka iyaga ku ganacsada goobtan isla markaasina uu kala gooshay seelada magaalada Burco iyo suuqa intiisa kale waxaanay sheegeen in haba yaraatee la joojiyay gaadiidkaasi meeshu wadarkiisana waxa soo qashinaya yaala saxay caafimaadkooda male waa mid ma laha biyo waa mid ma laha koronto dadka leeyahay maxaan sheegay qooli qorqabad biyo kuma cabto khasab ku deganaadana ma deganaanayaan qof walba wuxuu la soo kala naf iyo dan maxaan sheegay naftii dantu la soo kalaayna halkan waa meel maxaan sheegay aan marka hore maxaan sheegay booskale meesha leeyahay Maryaa lagu iibinaya oo waa hangarkii Maryaa wajahad ma laha oo maxaan sheegay albaabkii maalinta munaasabka ku ah way ka xiran tahay ma laha baabuur u shaqeeya halkan waxa la basaska ka shaqeeyo tigoy maartay la yiri aan hawo shaqeeyaan oo maartay sidii anigu aan warkan ku maqlayay tiga loo qoray la yiri ma ay kama shaqeeyaan inanba hadar ma xalay tig bay soo qaado waa la igu xiray maxaan sheegay dadkuna waa dadka arkaysan iska wada masaakiinta de wax soo rido ma baadanahay waxay u baahan yihiin wax si daacad ah ugu qabto hadii meel dajiyeen si cad oo maartay wanaagsan oo maartay Ilaahay raali ka yahay wax ugu qabto ugu dajiyo baahin Rahmaan Rahiim dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay halkan nooga samayso orda qashin kale oo dhan la ka qaado meesha koronto la soo galiyo tiga noo shaqeeyo lambar 1 gaadiidka meesha gaadiid hortaanu helo qashinkana hana la ka qaado oo waxaan ku reer balaasay inoogu yimaadaan qashinka intana la ka qaado wada cagad hana loo sameeyo hadaan bridge noo la sameyn karayn meeshana waxaan ku yiri saxadeeda hal la ilaaliyo waxaan ku dadkan suuqyada madow galayna hala soo wada qaado dantii waanu anagu dawladda amarkeeda waanu qaadanay laakiin dadaan qaadan baashiro luuqyada ku wada jira anigoo ah gudoomiyihii Tawali oo Faadimo Dhimbiila waxaan u sheegayaa dawladda sharafta leh xildhibaanka waaxda meesha waanu degnay aad baa loo degay dadkuna waa ku karsoonaayeen laakiin saddex calaamo saddexdaasna inuu ka hadlayaa layrkii waatan waa lagu xidhayaa oo bari baa loo qodayaa biina naga ballan qaaday oo wuxuu wala gelinayaa waa laba qodob labadaas derbiga gurigan xidhan ee dhexe derbiyada ku xidhan in laga qaado oo la isu baneeyo halka boosba ka soo baxaya in la isu baneeyo oo labada derbi laga qaado in la kala sooco bacadlaha iyo hiliblaha alla kala sooco dharku waa dhar duqsiga isku taaga hilibka ayaa dharkii wasakhaynaya marka hiliblaha in gaar laga dhigo oo hangar gaar la siiyo qudradana hangar la siiyo oo iyaga la isku furo labada laakiin bacadlaha hangar gu gaara oo iyagu maxay tahay dharkaas oo ku nabad galo in loo sameeyaan rabnaa si kastaba ahaatee dadka iyagu ka ganacsada hilibka iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa waxay baaq dheer u direen mas'uuliyiinta ay qusayso arrintani Maxamed Axmed Aadan Maxamed Damashaad wararka Royal TV magaalada Burco.